السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أرديد شرفت السود هذا ما شاء الله وصلابتي وحرجنا إن عافمات قبطان سلم الحمد لله that's good okay ما أنت هلك وحنا وهي 10 كيلو آدي أدو قروح بدن أو إن عاونية كهذلك لغة إنجليزية are we together fine and 10 كعبان كيسو حقولي هي 28 powerful daily spoken English sentences so halkan waxaan ku baran doonaa marka 28 jumladood oo aad iyo aad muhiim u ah oo inaga caawinayo ku hadalka awgeeda ma sha Allah dhawaaqa iyo macnaha carabkan ku xoojin doona ila soco muuqaalka noo like gareeyo waa codsi kanaalkana ka mid noqo haday tahay markaad koowaad oo ay soo booqanayso thank you so much fine jumlada ugu horeyso I need to visit the doctor and have check up I need to visit the doctor and have check up waa inaan booqdo dhakhtarka oo aan isu soo baaro okay so waa jumla adeegsan karto marka aad maybe dhakhtarka u socoto okay mid xigto I was listening to it yesterday I was listening to it yesterday shalayto ayaan dhageysanayay so salahan oo kale qof markuu ku dhaw ma dhageysatay oo kale waxa soo kale waxay ahaataba so you can use this sentence okay mid xigto just wait until I get back just wait until I get back sug ila aan ka soo laabanayo okay hagaag mid xigto can you recommend the best one can you recommend the best one may wala talin kartaa mid ka wanaagsan soo tan oo kale waxaad adeegsan kartaa laba shay rabtaa mid inaad doorato soo kii aad dooran lahayd ba ku wanaagsan tahay qof ba waxa leedahay ila talikeed doorta kee qaata okay that's good can you recommend the best one ila tali ama igula tali mid ka wanaagsan mid xigto stop talking and listen to me stop talking and listen to me eltas was silent talking sasa ugu dhawaaqsa okay jooji hadalka idageysa aniga that's good so tan kale waxaad adeegsan kartaa marka aad qof inaad wax u sheegto aad oo arkis qofkan inuu hadlay hadalka jooji idageyso marka aad rabto inaad tiraahdo okay mid xigto I seriously need some help I seriously need some help dab ahaan waxa u baahanahay caawinaad okay I seriously need some help tan kale waxaad adeegsan kartaa marka aad rabto qof inuu ku caawiyo ama wax uu يعني عاونات u baahan tahay okay mid xigto I am so sorry I completely forgot it I am so sorry I completely forgot it aad baa wax xumahay gabi ahaan waa iloobay okay so tan kale waxaad adeegsan kartaa qof markuu wax intuu ku weydiyo wixii aad xasuusan weyso aw wixii soo saari weysid so waxa leedahay aad baa wax xumahay gabi ahaan waa iloobay so jumla wanaagsan waa okay mid xigto that might be worth a lot of money that might be worth a lot of money taasi qiimaheedu waa qiimo aad u sareeyo okay so kan kale waxa adeegsan kartaa marka shay maybe aad qaali u ah oo kale qof markuu intuu ku weydiyo shaygaas qiimihiisu waa intee ayuu leeyahay oo kale marka uu ku dhaha oo kale so this sentence ay isticmaali kartaa shaygaas qiimihiisu waa uu sareeyaa qiimaha uu ku fadhiyo we together okay mid xigta isla aragno jumlada xigto I have to prepare early enough for the exam I have to prepare early enough for the exam waa in aan imtixaanka waqti hore u diyaar garoobaa so tan kale waxaad adeegsanaysaa marka imtixaan aad isku diyaarinayso okay that's good mid xigto pick and choose what you want pick and choose what you want qaado oo xulo waxa aad u baahan tahay okay so qof marka aad xorriyada siinaysid waxa aad meeshan kala bax aad rabtid aad jumladaas adeegsanaysaa we together that's good mid xigto I need to think about it first I need to think about it first waa in aan ka fakiraa marka hore okay so tan kale waxaad adeegsan kartaa qof baad salahan kale wuxuu ku dhahay waxaas ma sameynaa ama safar ma aadna okay so you say I need to think about it first waa in aan marka hore ka fakiraa okay mid xigto where do you think we can go for this holiday where do you think we can go
for this holiday halkeed isleedahay in aan fasaxan aan u bixi karno aan aadi karno okay so tan kale qof weydiinaysa then qofkaas uu ku sheegi kara okay I think like maybe we can go maybe USA or maybe we can go France okay so where do you think where what place okay that's good mid xigto I need to rush home and get changed I need to rush home and get changed waa in xaafada ku ordo waa aan soo dharbadasha get changed waa in aad dharka aad soo bedelataa qabtid markaas okay so talaana kale qof ku meel isku raacno so maybe marka xaaladahay okay just let me I need to rush home and get changed waa in xaafada ku orda kadibna aan dharka soo bedasha okay mid xigto you need to stop worrying you need to stop worrying waa in aad joojisaa walwalka you need to stop worrying so tan kale waxa adeegsan kartaa maybe qof markaas aad aragtid qof aad u walwal ama aad u murugaysan in aad kula taliso hey you need to stop worrying walwalka tirada badan jooji mid xigto I have never heard that before I have never heard that before weligay ma maqal okay sheegaas oo kale ama waxaas I have never heard that before weligay ma maqal so maybe wax weliga aad maqalin oo kale marka maybe qof uu ku weydiiyo kale so this is the right sentence to use okay mid xigto think before you speak think before you speak okay ka fikir inta aadan hadlin ama aadan wax oran think before you speak sidoo kale waxa adeegsanaysaa maybe qof marka aragto wax xikmadeysan aanan ku hadlaynin alle hey just think before you speak ka fikir waxa aad afkaaga soo baxay ama ku hadlaysid are we together mid xigto I just want some peace and quiet I just want some peace and quiet waxa u baahanahay nabad iyo xasilooni salaana kale dad baa ku dhibeen so maybe waxa la hey just I need some peace and quiet waxa u baahanahay xasilooni iyo nabad u baahanahay buuqa iga dhaafo oo kale marka dheerta are we together that's good qaybta xigta isla aragno jumlada xigto I need to change my way of thinking I need to change my way of thinking wa inaan bedelo sida aan u fikiro okay I need to change my way of thinking wa inaan bedelo sida aan u fikiro jumlada xigto don't be jealous don't be jealous ha noqonin qof maseer badan ana qof dadka kale aan waxba oo galeen oo ruuxa ka maseero okay marka aad leedahay kale taas adeegsanaysa mid xigto I can't explain it I can't explain it okay ya ma sharaxi karo I can't explain it qof waxa ku dhahay sheegaas ma sheegi kartaa sababta uu dhacay so you see I can't explain it ya ma sharaxi karo ama faahfaahin kama bixin karo okay mid xigto I couldn't stop laughing I couldn't stop laughing ma aanan joojin karin qosol okay so ereyga waxa laga soo gaabay could not salaana kale qof meel isku raacdeen maybe waxa aragtay marka qofkaas in qof kale uu aad ugu qoslay waxa uu sheegayo soo markaa leh maxaa aad isku xishoonaysid miya maxay tahay qosolkaas tirada badan I couldn't stop laughing ma aanan joojin karin qosolka okay mid xigto stop annoying me stop annoying me okay ya hayga careysiinin jooji hayga careysiinin okay salaana kale qof baa hadal xun kugu dhahayo so qofka dhibsanaysa hadaladiisa so this is how you can say okay hey stop annoying me hayga careysiinin okay mid xigto it doesn't belong to me it doesn't belong to me qofa wuxuu ku dhahay hey sheegan ya iskale oo kale shay meel uu ku arkay oo kale so am wuxuu ku dhahay hey sheegas adiga ma leh oo kale ku dhahay so you can say it doesn't belong to me aniga malihi mid xigto be careful when crossing the road be careful when crossing the road okay taxadar samee marka wadada aad goynaysid okay caruurta kala kuwanaysa taas okay be careful taxadar samee when crossing the road marka wadada aad goynaysid yani si gaariga aysa kugu dhacin gawaadida mid xigto I am so proud of you I am so
proud of you aniga aad baan kugu faanaa I am so proud of you so tan kale waxaad adeegsan kartaa qof agtaada qaali ka ah marka wax wanaagsan uu sameeyo I'm so proud of you aad baan kugu faanaa mid ugu dambayso oo casharkan maanta ku soo gabagabeynayno I will be there in 10 minutes I will be there in 10 minutes qof wuxuu ku dhaw kale okay when can we meet goorma kulmi karnaa or maybe meeshas goorma imaanaysa so you can say I will be there in 10 minutes or maybe 20 minutes or 30 minutes waqtiga marka halkaas aad ku tagi kartid are we together so masha Allah waxa rajeynaa jumlooyinkaas waa jumlooyin aad iyo aad wanaagsan oo ay naga caawinayo ku hadalka luqadda Ingiriisiga so hal xifdiyo meel ha lagu qorto then xaalado kala duwan markay ay ku qabsadaan isku day in marka aad soo xasuusan kartid are we together so muhiimadda ayaa waxay tahay wixii aad baratid in aad isticmaasho hadaad isticmaalin wixii way ka dhumayaan are we together so masha Allah hadii aad muuqaalka gabagabadiisa soo gaartay oo ku maasantahay daawashada muuqaalka insha Allah noo like gareeya si arday badan oo gaaro muuqaalka xigeenka ka kulmi doona khayr badan baan ku ogahay sidaas nabadgelyo